السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا عشرة ذي ويندوز كا ما أنت مرتو حقادنا ستارت منيو يسوق التاسك براين قادنا كمبيوتر كمان تا سول دارتي محويلا دورا مرتو قيو كل دون سقيبتا نور الشاشدان بنان تا وحلي قانا ديسكتوب يا لي قانا اوكي شاشدان بنان تا وحلي قانا ديسكتوب يا لي قانا سقيبتا مرتو ستارت منيو يا لي قانا ميشان ادا كو اديسيد ستارت اي نقونيسا markii start button ka markaa click ku siiso waxa soo bixi doonto start menu meel dhahay ayaa soo bixi doonto so button ka ku dhufanaysaa click ayaa ku siinaysaa ama calaamadda windows ka keyboard ku leeyahay ayaa click ku sii kartaa so click markaa ku siisid waxa soo bixi doonto start menu one ayaa soo bixi doona marka waxaan rajeynayaa hadda inaad fahantay start menu wuxuu yahay markuu start menu ku soo baxo waxaa arki doontaa applicationadan oo ah applicationada binka aa saartay oo aad markaasi saaratay qaybta markii start menu so soo jeeda qaybo badan ayaa markaasi applicationo badan ayaa markaa meeshan saaran oo automatically markaa windows aa ku shooto gaar ahaan window 11ka sidaan ayuu markaa noqon doonaa intaan application markaa ayaa meesha ku aadi doona marka dhammaan applicationada dhan waa fiiri kartaa waxaa ku dhufi kartaa meesha ay ku qoran tahay all applications so all applications markaa ku dhufatid waxaa arki doonta dabcan dhammaan applicationada so all applications oo kugu jira computerka halkan ayaa ka arkaysaa midka u baahan tahay dabcan waxaad ka raadi kartaa qaybtan searchia oo halkan ayaa ka raadi kartaa so application ka u baahan tahay halkan aad ka raadinaysaa tusaale kale waxaa dhahaysaa word application word kala waa raadi kartaa haddii application kale u baahan tahay waxaa dhahaysaa Adobe Premiere Pro kale markaas oo kale u raadinaysaa application ka uu ku soo baxaya so start menu markii wax la raadinayo oo search lagu dhufto haddii aan meeshan ku dhufto kadib search ay ku dhufto waxaa raadi karaa wax walba u baahanahay laakiin haddii aan sidan u raadiyo aan dhaho tusaale kale word haddii wixii application uu yahay si toos waxaa dhihi karaa app ahaan igu raadi waxaa dhihi karaa document ahaan igu raadi waxaa dhihi karaa website ka raadi oo internetka settingkii ka raadi aa dhihi karaa soo jeed settingkii aa laga soo saaray folder ahaan u raadi aa dhihi karaa sawir ahaan u raadi waxaasoo dhan marka waa samayn kartaa sidoo kale all waa samayn kartaa oo dhammaan wax walba ku hayo uu ku soo bandhigi doonaa hadday noqon lahayd applicationada kala duwan iyo sidoo kale qaybta settingka iyo sidoo kale qaybta markaa websiteka ama webka in markaas internetka laga raadiyo erey meeshan aad ku qorto okay marka waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen start menu marka applicationada meesha saaran waxaad iska qaadi kartaa applicationada aadan u baahnayn tusaale waxaa dhahaysaa right click unpin from start aad leedahay marka hadda waxaan sameynaa applicationada kale oo badanaa aan isticmaalo inaan bin saaro so marka applicationka u baahana halkaan ka raadin doonaa tusaale kale waxaa dhihi doonaa Visual Studio Code kadib waxaa dhihi doonaa right click kadib waxaa dhihi doonaa pin to start waxaa markaasi laga soo muujin doonaa meesha aad dartaan kadib markaa soo bilaawid oo aad meeshaan click ku siisid waxaa arki doontaa softwareka halkaan la soo geliyo so softwareka haddii aad soo gelisid waxaa arkaysaa iyadana softwareka in la soo geliyo waxaa dhihi doontaa right click pin to start then marka applicationka halkaan ka arkaysaa so markii start menu waxa uu miiso waxa weeyaan applicationada la yiraahdo wax walba loo baahan yahay halkaan la yiraahdo sidoo kale qaybta waxa ku jira dabcan profile-ka ku jira so profile badan haday jiraanna halkaan ay soo ka soo muujin doonaa sidoo kale meesha la diminayo waa kana dabcan waa taqaanaa power weeyaan waxaad samayn kartaa inaad restart samaysid oo wuxuu samayn doonaa uu dimin doonaa applicationada dhan uu xiri doonaa dib ay u soo daari doonaa applicationada dhan uu xiri doonaa dib ay u soo daari doonaa halka shutdown ay tahay inuu damiyo computerka kaliya sidoo kale sleepkana waxaa weeyaan computerka inaad si caadi ah u damisid aad soo daartid okay so qaybtaas marka waxaa laga qaanaa start menu qaybta marka searchana ayuu leeyahay so marka qaybtan hoose oo dhan marka waxaa la dhahaa task bar ayaa laga qaanaa qaybtan hoose dhan aa ujeedid ay ku jiraan waxyaalaha saacadda waxyaalahan oo bateriya oo laga arkayo bateriya saacadda iyo sidoo kale qadka iyo wax walba looga xiriirinayo so marka qaybtan oo dhan waxaa loo yaqaanaa task bar ayaa loo yaqaanaa tusaale marka task barka waxaa loogu talagalay inay kasoo muuqdaan applicationada markaa aad soo furtay iyo sidoo kale applicationada oo aad markaa meesha aad saartay oo aad ku samaysay wax loo yaqaano bin to task bar okay marka hadda waxaa soo furi doonaa application wordkan soo furi doonaa marka hadda application markaa soo furo halkan ayuu soo geli doonaa meeshan soo jeed so application walba aad soo furtid halkan ayuu soo geli doonaa so marka task barka waxaa loogu talagalay applicationada markaa aad isticmaalisid inay halkan kuu soo galaan application meesha waa dhigan kartaa si markaasi mar walba si ciyoon ah usoo furato hadda window wordka kale hadda wordka kale waxaa samayn karaa inaan mar walba meeshaas uu ii yaalo oo aan mar walba meeshaas ka soo furo oo aan xiro meeshiisa uu ii yaalo hadda markaa xiray meesha uu ka soo qaadnay oo wuxuu ku soo laabtay meeshiisa uu yaalaa oo ama bin ayuu marka meeshan ku saaran yahay hadda bin ayuu meeshan ku saaran yahay ama waa raadinaya mar walba u baahanahay so mar walba inaa raadiyo iyo sidoo kale start menu inaa aad haddii aadan u baahnayn so task barka ayaa dhidi doontaa marka waxaa samaynaysaa right click kadib waxaa leedahay pin to task bar okay marka wuxuu imaan doonaa halkan wuxuu markaasi imaan doonaa xitaa hadduusan furnayn so haddii aad furtana waxaa weeyaan wuu furmi doonaa kadib markaa xirtana isla meeshiisa ayuu aali doonaa marka
taskbarka waxaa loogu talagalay in markaas applicationada la isticmaalayo in markaas applicationada la isticmaalayo ay kasoo muuqdaan sidoo kale applicationada markaas lasii dhigto si markaasi isla markii applicationada loo soo furo qaybtan kale taskbarka uu leeyahay waa qaybta markaa kasoo muuqanaysa saacadda iyo wax walba hadda qaybtan kale saacadda kasoo muuqanaysa iyo taariikhda haddii aad ku dhufato waa sii arki kartaa sidoo kale meesha waxaa kasoo muuqan doono notifications kasoo muuqan doono notifications kasoo muuqan doona oo whatsappkii waxyaalahaas haddii markaas computerka uu kugu jiro qaybtan kale waxaa weeyaan waa saacadda iyo sidoo kale bateriga iyo sidoo kale codka ama microphoneka codka sidoo kale qaybtan waa lightka hadda night light ayaa saaran hadda saa ujeeda iftiinka aad uu noqday night lightka waa ka qaaday iftiin caadi aa ka dhiday saa ujeedaan marka badanaa night lightka iska saaro haddii kale waxaa weeyaan iftiinka kale aad ayuu markaa u dheeraya so qaybtan kale waxaad ka xiriiri kartaa saa ujeedid bluetoothka qaybtan internetka ayaa laga xiriiriya haddaad ku dhufto internetka halkan uu soo qaban doonaa kadib waad dooranaysaa dabcan okay sidaas ayaa markaa internetka loogu xiriiriyaa qaybtan kale waa taqaaniin waxaad ku qoranaysaa ujeeda airplane mode waa markaa u baahan tahay in markaasi computerkaada wax internet uusan ku xiriirsamin waana in markaas aad saaratid diyaaradda okay waana sida mobilada kale so marka qaybtaas waa qaybta u muhiimsan hadda aan sharxnay so qaybahan kale haddii falaarta aad ku dhifto waxaa ku jira applicationo badanaa ku jiro so applicationo qaarkood ayaa soo geli doona so marka badanaana marka qaybta muhiim ahaan way is bedbedelaysaa mar walba waxay ku xirantaa applicationada aad isticmaalaysaa daarid inaad kasoo dhex bixisid waxaa samayn kartaa waa ku aadinaysaa waa soo daraajareynaysaa meeshaan aad ku dhufanaysaa meeshaan aad ku aadinaysaa kadib meeshaan ayuu imaan doonaa marka waxaan rajeynayaa haddeerta inaad si fiican u fahanteen halkaas ay ku tumi doonaa insha allah cashirkeena maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته